shaki weyn ayaa ka dhashay kulan maanta loogu yeedhay xildhibaanada golaha shacabka ee muddaxileedkoodu dhammaaday xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay aad u kacsan tahay. kulan loogu yeedhay xildhibaanada ayaa la sheegay in lagaga hadli doono xaaladda cudurka COVID-19 iyada oo uu shir guddoomin doono guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. si kastaba ha ahaatee xildhibaanada qaar ayaa durba bilaabay in ay isla dhex maraan in COVID-19 lagu dhex qarin rabo arrimo la xidhiidha doorashada dalka, gaar ahaan muddo kordhin loo sameeyo xildhibaanada iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo. xildhibaanada qaar ayaa wacad ku maray inaysan marnaba ogolaan doonin ayna ka xigaan gacanka hadal in muddo kordhin sharciga ka baxsan loo sameeyo hay'adaha wakhtigoodu dhammaaday. xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah mucaaradka ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku yidhi dulqaadka xildhibaanada in qalad loo fahmo oo maalinba qorshe Farmaajo gadaal ka riixaya golaha shacabka lala hor yimaado waa ceeb iyo foolxumo, mana aqbalayno. tuhunkan ayaa waxa uu sii kordhinayaa iyadoo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya 23 bishan shir jaraa'id ku yeesheen hoteelka Dacaale oo ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo ay isku bahaysteen diyaarinta sidii doodi doorashada dib loogu celin lahaa baarlamaanka, iyadoo halkaas laga raadinayo muddo kororsi loo sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaramada midoobay ayaa isla maalinkii xigay ka digtay isku daygan, iyadoo qoraal ay soo saartay ku sheegtay in beesha caalamku aysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin. qoraalka ayaa lagu yidhi dhammaan hogaamiyeyaasha muhiimka ah ee Soomaaliya waxay ku sugan yihiin Muqdisho. waa waqtigii wadahadallada aan rasmiga ahayn si la isugu raaco kulanka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. saaxiibada caalamku waxay ku celinayaan in aysan taageeri doonin hannaan doorasho oo hal dhinac ah ama kuwo isbarbar socda ama hindise kasta oo hogaamiye muddo kordhin loogu samaynayo muddaxileedkiisii hore. haddii Mursal oo xulufo la ah Farmaajo uu ku dhaqaaqayo tallaabadan waxay noqon doontaa ismiidaamin siyaasadeed oo qalalaasi xooggan gelisa dalka.